ay isfureen labadan lamaane. haddaba daawadayaal warbixin dhammaystiran ayaanu idinka haynaa, balse inta aynan u gudagelin halkani waa channelka Siis Official. fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe saar, sidoo kalena gamleelka fursi ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. muuqaalkana like noo saar. ugu yaraan muuqaalkan diyaarintiisu waxay ugu qaadatay muddo 3 saacadood ah. haddaba wax dhibaato ah kuguma ahee muuqaalka like saar. daawadayaal waxa social media la dhex wareejinayay inay isfureen isla markaasina ay kala tageen Liicaata iyo Sumaya oo ahaa laba lamaanayaal oo YouTuber ah isla markaasina isqabi jiray. haddaba daawadayaal sidaanu ka helino social media 80% waxa la hubaa in ay labadan lamaane isfureen. haddaba daawadayaal adduunkan aynu ku noolnahay wax walba waxay ku dhacaan sababta ugu weyn ee ay lamaanayaashan isku fureen ayaa ah kadib markii Sumaya ay barteeda TikTok-ta soo gelisay muuqaalo ay la soo duubtay wiilal kale oo ajaaniba. haddaba daawadayaal wiilashaasi kale markii uu arkay Liicaata ayuu ka xanaaqay. dhammaan Sumaya waxay tirtirtay muuqaaladii uu Liicaata iska lahaa ee ku jiray page-keeda Instagram-ka iyo TikTok-ta sidoo kale iyo Facebook-ka. sidoo kale daawadayaal Liicaata ayaa isaguna dhammaan sawiradeedii iyo xasuusaheedii dildiray. jacayl ma jiro, jirka ayaa isku baahan baan odhan karnaa, jacaylkii biyaha raacay. bal waa kan nala daawo muuqaalo ay soo duubayeen dadka TikTok-ta isla markaasina kaga faaloonaya sababaha ay u tageen isku laayeen. waxaa maqlay Liicaata iyo xaaskiisa oo kala tageen, sababtuna gabdho waxaa idin leeyahay weligaa haddii lagu guursado ma aad noqoto nin marwadiisa isku day inaadan ku badanin nimanka ama aad samayso wax ninkaaga dhaawaco. hadda gabadhan wax kale laguma furin, 10 jir oo aqaan gaarina ee ninkeeda ku doorsatay. balse halkan waxaa ka salaamaya Liicaato brother, waxaa ku leeyahay saaxiib baasaboor waa hele, ma fahmino noloshu saaxiib kuma ciisho, ma fahmino dadaalka badi saaxiib xabadoo kale oo Mareykanka joogto waa hele saaxiib nin caanaata, ma fahmino hani jabin saaxiib. aad anaa ugu xumahay intaasoo soo sabraysniyo sharaftaada hoos u dhigtay saa baasaboor oo heshay haddana qofta adoon ka sbeenin iska furtay. aad ay ugu xumahay saaxiib. lamaanayaashani daawadayaal muddooyinkii u dambeeyay waxaa soo badanayay lamaanayaasha isfuraya isla markaasina kala tagaya. haddaba daawadayaal waxaanu Allah subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa cid walba nolosha iska dooratay isla markaasina doonaya inay dhistaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan inuu riyadooda alla u rumeeyo isla markaasina bogooda subag isu mariyo. haddaba daawadayaal sidaanu helayno wada rasmiya ugu dambeyn YouTuber-ka weyn ee Liicaata ayaa si rasmiya u furay gabadha lagu magacaabo Sumaya kadib markii uu ka arkay waxyaabo uu dul qaadan waayo. haddaba ugu dambeyntii Liicaata wuu furay Sumaya. maanta laga bilaabo waa laba shakhsi oo walaalo ah oo aan meher iyo midna isku hayn. haddaba daawadayaal wixii war ah ee dambe ee ka soo kordha halkan ayaanu idinkala socodsiin doonaa. haddaba si ayna ku dhaafin subscribe saar channelka, sidoo kalena gamleelka fursi ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. muuqaalkana like saar. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa asxaabta qiimaha badan ee ku taxan channelkeena Siis Official. waan ku mahadsantihiin inaad nagu sii dhaweysaan 50,000 subscribe. waananu idin jecelnahay, waxaad noo tihiin ayaan idin nahay. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. waxaa maqlay Liicaata iyo xaaskiisa oo kala tageen, sababtuna gabdho waxaa idin leeyahay weligaa haddii lagu guursado ma aad noqoto nin marwadiisa isku day inaadan ku badanin nimanka ama aad samayso wax ninkaaga dhaawaco. hadda gabadhan wax kale laguma furin, 10 jir oo aqaan gaarina ee ninkeeda ku doorsatay. balse halkan waxaa ka salaamaya Liicaato brother, waxaa ku leeyahay saaxiib baasaboor waa hele, ma fahmino noloshu saaxiib kuma ciisho, ma fahmino dadaalka badi saaxiib xabadoo kale oo Mareykanka joogto waa hele saaxiib nin caanaata, ma fahmino hani jabin saaxiib. aad anaa ugu xumahay intaasoo soo sabraysniyo sharaftaada hoos u dhigtay saa baasaboor oo heshay haddana qofta adoon ka sbeenin iska furtay. aad ay ugu xumahay saaxiib. waxaa maqlay Liicaata iyo xaaskiisa oo kala tageen, sababtuna gabdho waxaa idin leeyahay weligaa haddii lagu guursado ma aad noqoto nin marwadiisa isku day inaadan ku badanin nimanka ama aad samayso wax ninkaaga dhaawaco. hadda gabadhan wax kale laguma furin, 10 jir oo aqaan gaarina ee ninkeeda ku doorsatay. balse halkan waxaa ka salaamaya Liicaato brother, waxaa ku leeyahay saaxiib baasaboor waa hele, ma fahmino noloshu saaxiib kuma ciisho, ma fahmino dadaalka badi saaxiib
xabadoo kale oo maraykanka joogto waa helay saaxiibnin caanaatan fahmno hani jabin saaxiib aad anaa ugu xumahay intaasoo soo sabraysniyo sharaftaada hoos u dhigtay saa baasboor oo heshay haddana qofta adoon kasbeenin iska furtay aad ay ugu xumahay saaxiib adiga qorshaydile qararka marso dhadhami wixii kula qurux badnaa in badan soo qoomame adiga qorshaydile qararka marso dhadhami wixii kula qurux badnaa